السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دبادة أقنصار أونلاين أكاديمي مقال كلا وكتسان عشرين تحناها يعني قلت لك لينا تكون المارسان اللغة دين الإنجليزية قدنك هذا الكا هذا لسعتي وحسوستان مقال كنا وروح نكسر عرقني 10 ways to say thank you طبعا قاب أما طبعا نوع كل دون وقفك وقولنا كرتم بهالسنين ما أنت أنا واحد نعرف دونا وإنه عش مقال كنا كقران دونا ما عش كنا كوارك دونا طبعا قاب والله قفك مقول هذا mahadsanid loogu warceliyo ama qofka markuu raado mahadsanid loogu yiraahdo waxaan arki doonaa 10 ways to respond to thank you toban qaab oo loogu jawaabo qofka markuu thank you ku lahaado koowaad arki doonaa waxa weeye markuu qofku raado mahadsanid you are welcome adaa wado you are welcome you are welcome you are welcome adiga mudan qofka waxa uu sameeyay wuxuu yiri thanks ama wuxuu yiri thanks a lot hadkooni you are welcome adiga ayaa mudan wax soo kale ku oran kartaa no problem dhibaato ma leh la mushkila wax dhibaato ma laha waa iska caadi waxaad ku oran kartaa markuu yiraahdo thanks ama thanks a lot ama thank you markuu yiraahdo no worries hawlwarin waxaan iska caadi waxaad sidoo kale ku oran kartaa don't mention it don't mention it don't mention it waxa waxba sheegin waxa way qofku markuu sidoo kale ku yiraahdo mahadsanid waxaad ku oran kartaa my pleasure farxadayda ama yaani oo looga jeedo inaad adigu ku faraxsantahay qofka inaad waxa wanaagsan ama waxa ka codsaday u sameeyso waxaad sidoo kale oran kartaa anytime xilli kasta waxa looga jeedaa inaad qofka mar walba aad diyaar u tahay inaad caawiso ama mar walba aad diyaar u tahay inaad wax wanaagsan u sameeyso it was the least I could do inta ugu yaraan ku sameyn karayo waxaas inaad ku taado qofkii ama aad ku taado waxa ugu yaraan ku qaban karo waxba ha sheegin waxa soo rakan kartaa glad to help oo ku faraxsan inaan ku caawiyo oo qofkii ku lahaado tusaale ahaan thanks for helping me ama thanks for your help oo ku lahaado qofkii waxaad ku oran kartaa glad to help oo ku faraxsan inaan ugu ku caawiyo sidoo kale waxaad qofka ku oran kartaa markuu ku yiraahdo mahadsanid shuwa iska oran kartaa oo iyaduna kamid ah qaabka qofka loogu markuu mahad celiyo loogu warceliyaa sidoo kale waxaad iska oran kartaa thanks ama thank you markuu ku yiraahdo qofkii ama thanks ku yiraahdo waxaad ku oran kartaa thank you mahadsanid waad isticmaali kartaa iyadana waxaan filayaa inaad ka wada faa'iidaysteen waa inayo muuqaalka xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh